labadii nin markaa way isqabteen dahabka adigaa leh qaado iyobaa la isku hayaa adigaa leh qaado anigu ma rabe waxay noqotay in la garamo kooda leh adigu qaadiyo adigii qaado gar bay ka dhacday nin baa la isula tegay markaasu waxaa la yidhi noo garnaq ninkii wuxuu yidhi maxaa isku haysaanoo ninkii sidii buu sheegtay ninkan dhul baan ka iibsaday iyo meel dahabkan baan ka helay dee anuu dhul baan iibsaday iga qaada baan ku yidhi dahabkaaga ninkii kalena wuxuu yidhi war anugu meesha wax ku jirana ma garanayna waa ka iibiyey wixii uga soo baxay isagaa leh ha qaato ha igala tago ninkii garta naqaya baa wuxuu ku yidhi nin buu labadoodii mid buu wuxuu ku yidhi alaka walad alakuma waladun buu yidhi waar waxaan idin weydiiyey carruur ma leedin walad waa ismu jinsi yani wax carruura ma dhasheen labadii nin mid wuxuu yidhi lii ghulaam anigu wiil baan dhala kii kalena wuxuu yidhi lii jaariya anna inan yar baan leeyahay wuxuu yidhi haddaba gartii waxaan ku naqay wiilkaa iyo gabadhaa inta isu guurisaan waxoogaagaa dahaban iyaga ku sadaqadaysto siiya gartiinni saasaan ku naqay buui wiil iyo gabadhaa yaraa dhasheen iyaga isu guuriya dahabka ama labadiinuba aad diidantiin iyaga ku sadaqadaysto iyagu ha qaataan nebigu calayhi salaatu wasalaam qisadan wuxuu inoogu sheegayaa inuu ina dareensiiyo qofka muslimka ah waxa looga baahan yahay iyo adduunkan inuu ka zaahido hunguri badan aanu ka haynin in waxa hungurigu ka haya ay noqoto aakhiro inay u islaaxdo ama aakhiro fiican inuu helo sidaa awgeed baa qur-aanku in badan wuxuu inoo tilmaamaya inaynu aakhiro doorbidno ilaahay subxaana wa tacaala ina leeyahy bal tuxibuuna alcaajila waxaad jeceshiin tan degdegta badan leh aakhirana waa ka tegaysaan baa ilaahay leeyahy bal tu'hiruuna alxayaata addunya noloshan adduunyaa door bidaysaan baa la yidhi subxaana wa tacaala waalaakhiratu khayru wa abqa aakhira khayr badan oo hadhitaan badan oo waaritaan badan oo fiicnaan badan deriskan maanta waxaan idinku sheegayaa ikhwatii fi lcaqiida idinka iyo naftaydaba wuxuu yahay insaanku waa ibnu bii'atihi baa la yidhaahdaa qofku environmentka uu ku nool yahay ayaa raad ku leh taahiir ku leh waxaad timaadeen dhul xooluhu ay yihiin waxa qiimaha leh qofka bini aadamka ana qiimihiisaba lagu qiimeeyo intuu xoolo haysto qofkii aan xoolo haysan uu wax liita yahay qofkii xoolo haystaana uu qof fiican yahay bulsho la ysku qiimeeyo gaadhiga uu wataa noocu u eg yahay guriga uu leeyahay meeshu siduu u eg yahay fadhiga gurigiisa yaalla inta uu leeg yahay sariirta guriga taalla sida ay u eg tahay waxa uu haysto bulsho lagu qiimeeyo laakiin shareecadu taa wax kuma qiimaysa waxaa lagu qiimeeyaa qofka mu'minkaa inta iimaan qalbiga kaga jirta iyo camalka saalixa uu sameeyo intuu aakhiro ka dooranayo adduunka inta uu adduunka ka zaahidayo waxaan leeyahay muhiimada weyn ha la siiyaa aakhiro yaan loo noolaanin guriga in laga dhaldhalaaliyo kolba inaad daahiyadan beddesho odagii adiguba inaa u shaqaysaan un daahiyadaa beddelkooda iyo kijada alaabta taalla in laga qaado alaab kale la dhigo iyo sariiraha balballaadhintooda yaa nolosha laga dhigin ha la garto in nolosha loo joogo in la isitixaamayo ha la garto naf waliba inay go-ayso oo maalmo ay tahay waxaad halkan joogtaa gurigaaga rasmiga ah qurxi haddaad laba guri leedo midna kaa deganta uu yahay meelina geed aad hadhsanaysa uu yahay oo aad ku mashquusho geedka la hadhsanayo aad guriga ilowdo waa dhib gurigii wuu kaa horeeya weli maad gaadhin gurigaagii dhabta ahaa wuu kaa horeeya waana ama naar ama janno guriga u baahan inaad quruxsataa waa guriga janneed waxaa laydinka baahanya inaad noqotaan imra'atu fircawn waxay joogtay gurigii boqortooyada ninkii dadkaba u sheegtay inuu ilaah iyo rabbi u yahay ayay haweentiisii ahayd waxay joogtay guriga ninkii lahaa alaysa lii mulku misra wahadi lanhaaru tajri min taxti nebi muuse ku lahaa war miyaan anigu boqortooyada masar oo dhan lahayn war miyaan webiyadani hoostayda dareeraynin waxay joogtay guriga kuwa ilaahay qur-aankiisa ku lahaa kam tarakuu kuwa alla lahaa subxaana wa tacaala imisay ka tageen zuruuc iyo maqaam kariima iyo wanicmatan kaanuu
iyo nicmo ay ku faakahaysan jireen imisay ka tageen markii la halaagay ilaahay ku tilmaamayay subxaana wa tacaala waxaasoo dhan ba waxay ka door biday intay ilaahay rumayso in la toorjargareeyo la cadaabo oo ay tidhaahdo rabbi ibni lii beytan fi ljanna wanajinii min fircawna waacmalih wanajinii min alqowmi aldaalimiin ilaahayow guri janneed baan ku weydiistay fircoon iyo waxaanuu haysta iyo daarihiisa tan waxba kuma falayo iyo boqortooyadan masar iyo waxa yaaloo dhan laakiin waxay leedahay rabbi ibni lii beytan fi ljanna ilaahu guri jannada ku yaallaan ku weydiistay fircoon iyo dulmigiisana iga nabadgeli ilaahay baa markaa inagana wuxuuna leeyahy daraba allahu mahala liladiina aamanuu imra'ata fircawn ilaahay wuxuu tusaale idinka dhigayaa iyo maahmaah iyo wax lagu waantoobo wax lagu qaato waxaa la ydinka dhigayaa baa la yidhi subxaana wa tacaala imra'ata fircawn xaaskii fircoon uu qabay haweenaydii fircoon ayaa ilaahay subxaana wa tacaala tusaale idinku siiyey haweenaydani waxay isdhinac dhigtuun aakhiriya adduunka dabeetana aakhiray dooratay waxaa laga yaabaa dad badani iyadoo aanay xataa haysanin adduunkii ay aasiya haysatay adduunkay haweenaydii fircoon haysatay iyagoo aan haysanin adduun yaroo rafaadaba iyagoo haysta inay aakhiro ka doorbidaan iyana adduunkaa ballaadhan bay waxay ka doorbidaysaa aakhiro waxaa habboon markaa bii-adani inaanay noqonin waxa qura ishiina ka muuqda ee arki kartaan environmentkana ku dhaqantiin iyo deegaankani waa deegaankan lacagta iyo daaraha iyo waxaa la isugu faanayo minka u sarreeya ilaa ka u hooseeya waa deegaankaa soomaalidu 5 dukaan baan leeyahay 20 dukaan baan leeyahay la isugu faanayo waa deegaankaasi uu yahay guri baan dhistay iyo anigu طبقada sare ama middle classka guryahooda baanu deganay la isugu faanayo waa deegaanka guriga alaabaha yaala iyo waxa ku dhex yaala la isugu faanayo laakiin waxa khayrku ku jira kaama hay waxa khayrku ku jira waa in la isugu faano imisa salaadood baad jamaca xaadirtay imisa goormaad habeenkii salaatu leeyl imisaad kacday inteed wardiday intaad ilaahay ka baqatay subxaanahu wa tacaala maxaad quraan akhriday intaad tasbiixsatay intaad walaalka muslima caawisay ama walaasha muslimada intaad qof muslim oo jaahilay jahliga ka saartay intaad qof muslim oo kurba haysato kurbada ka fayday intaad ilaahay u dhawaatay subxaanahu wa tacaala intaad diinta alle dabaqday intaad qof muslima oo kale diinta gaadhsiisay ama mid gaala diinta u sheegtay oo gaadhsiisay intaad ilaahay iyo rasuulkiisa ka jeclaato ka doorbiday adduunka iyo waxa yaala waxaan ku soo koobayaa markaa ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanaه wa tacaala kuwaana aakhiradooda hilmaamin inuu inaga dhigo kuwii aakhiro ka doorbida adduunka kuway aakhiro la weynaato adduunkuna uu la yaraado kuwan adduunkan fitankiisa alle subxaanaه wa tacaala ku luminin ama se aan ku aanbanin وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى شيخ كعب الزيور شيخ أبو مسعود قاسين ميزان حسنات الله سبحانه وتعالى وقدره كل محاضرات أساسا يشوف النوبة وقليل طبعا وحسالها أوتوب بسينا ومشيله حتى وقتنا واسكيلي هاي محاضرة كلاهي من لنا هاي بعد الظهر إن شاء الله تعالى وسجل وقوني وتقلوا وقونا قالوا خلاص آخر سؤالك ما شفتين waayo insha Allah sheekha inuu gabagabay aakhir su'aal ka wajibtay waxa weeye hal tukada loo kala kiciga weeyaan insha Allah oo dardaranka sheekhu inoo dardaarmay hore culimadu inoo dardaarmay jirtay aan ka faa'iideysan insha Allah taala aanan ilaahi subhanahu wa taala weydiisano maaragtay dambiyo qoran waxa leedahay social media qoran baahan in qad baahan طيب شيخ هو العلوم اللي بدها بدي ديك قرينا طبعا اللي جيت وقالوا ان شاء الله تعالى اساس قبل هي سؤال شكلها هي اول صوره ده هي هاي شو معاك ترى ان هي ميتده ايه الكاغا سدا هويو هذا ابها